kursi intaan soo qaata bannaanka soo dhigta ayaa arki jiray diyaaradihii ciidanka cirka dagaalka oo kacaya degaayo markaas niyadda aan gashtay waxaan dhihi jiray ilaahu ha i dilin anoo garoonkan ka kicin oon ku soo degin bannaanka soo dhigta ayaa arki jiray diyaaradihii ciidanka cirka dagaalka oo kacaya degaayo markaas niyadda aan gashtay waxaan dhihi jiray ilaahu ha i dilin anoo garoonkan ka kicin oon ku soo degin niyadda markaas igu horreysa oo gashto hore u haysanin yaan go'aansaday walaashii Caasha Xasan Cabaade waxay ahayd first secretary of Somali president naxariis janna Allah siiyo madaxweynaheena Maxamed Siyaad Barre yaan weydiistay su'aashaas oo iri waxaan rabaa inaan maaragtay intaan u tegin isaga walaashii baan u soo bandhigay aan iri walaal waxaan rabaa inaan duuliye noqdo iigii madaxweynaha waxay tiri kuma geynayo sababta waxaan rabaa inaad dhakhtarad aad noqoto marka waxaan iri walaalay dhakhtarnimo waqtigaan rabaan baran karaa laakiin hadda niyad waxaan u hayaa inaan ciidanka galo oo diyaarahaas barto walaala iigii way iga diiday marka iga diiday waxaan rabaa aniga madaxweynaha inay taama u tagi karaaye igama xigtide waan insha Allah waan arki doonaa maalinta dambe waxay aragtay anigoo madaxweynaha la fadhiyo ayadoo xabis ku jirtay soo baxda waraaqo ay u keenaysay way ugu naxday anoo madaxweynaha la fadhiyo markay aragtay markaas way ka cartay waan u sii sheegay inay ii diidan tahay walaashii markaas yiri Caasha kaalay soo ma ogid carruurta markay wax ay jecel yihiin in ay bartaan in lagu encourage karo lagu geesi geliyo oo lagu garab qabto waxayna rabin laguma khasbi karo inay bartaan bas markaas tir wallaahi jaal madaxweyne raali ugama in laakiin markaas yiri maya intaynan imaanin waxa conversation xoog leh ayaana dhex maray marka su'aalo badan oo su'aale wuxuu yiri